in hooyadu iyo aabaha ay noqdaan ku dayasho waa inay iyaga ku dayasho ay noqdaan waa inaysan fududaysanin tilaabo kasta oo ay ku sameynayaan ubadkooda hortooda sababtoo ah waxaan soo tilmaamnay ubadka markii ay yaryar yihiin dareenkooda aad ay u sareeyaa maskaxdooduna waa mid fresh ah maskaxdooda waa mid furan wax kasto ay arkaan waxay isku dayayaan inay sameeyaan oo ay taqliidiyaan oo ay dhaadhaajiyaan sida aabaha iyo hooyada u sameynayaan waxaana fiiro gaar ah leh wax kasto oo ubadka uu kugu arko marka uu yar yahay 2 sano wixii ka dambayso ilaa iyo maxaa la yiraahdaa 5 sano waxaa la yiraahdaa uu yahay shay ugu wanaagsan shayga ugu fiican sababtoo ah qofka kaliya ee uu wax ka fiirinayo ee uu u arko qofka ugu weyn noloshiisa waa hooyadiis iyo aabihiis wax kasta uu ku arko wuxuu isku dayayaa inuu dhaadhaajiyo uu la yimaado waxaan ka hadli doonaa marka ugu horeyntii hordhac ahaan ku dayashada maxaa la yiraahdaa waxaan ka hadli doonaa in lagu barbaariyo ubadka ku dayasho sidoo kale waxaan ka hadli doonaa saameynta ay ku leedahay ubadka haddii waalidiintooda ay wanaagsanaadaan saameynta ay ku leedahay ku dayasho maxaa la yiraahdaa ku dayasho waxaa la yiraahdaa waa in qof tusaale u ah mithaali u ah dhinac kasta uu kaga dayanayo waa inuu samaysto bini aadankana laa shaka waxaa ah booskaasi ku dayashada in uu buuxiyo haddii uu maxaa la yiraahdaa booskaasi banaan yahay ma soconayso noloshiisa qofka waa inuu bini aadanka waa laga maarmaan inuu haysto qof indhihiisa ku weyn oo uu ku daydo haddii qof wanaagsan uu yahayna waa sidii la rabay haddii uu qof xun yahayna qofkii xumaa ayaa qof weyn u ah oo indhihiisa ku weyn uuna ku dayanaya ku dayashaduna waxay ka imaataa inta badan hadba bulshadaasi waxa ay weyneeyaan oo inta badan waxa saameyn ku yeelanaysa qofku waxa uu weyneynayo waxa markaasi bulshadaasi dhaqanka iyo kasoo gaarka u ah in uu maxaa la yiraahdaa uu ku daydo sida ay u weyneynayaan uu weyneeyo laakiin inaga haddii aan muslimiin nahay ku dayashada iyo tusaalaha ugu wanaagsan waxa inoo ah xabiibkeena nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam oo isaga ayaan ooga dayanaa shay kasta oo aan la imaanayno nabiga sallallahu alayhi wasallam isaga ayaa noogu tusaale ah nolosha idil wax kasta ha weynaado ama ha yaraado laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana liman kaana yarju allaha wal yawm al aakhir wa dhakara allaha kathira waxa markii loo baahan yahay aabaha iyo hooyadu inay isku arkaan iyaga booskaasi ay taagan yihiin inay yihiin ku dayashadii ubadkooda inay yihiin indhihii ubadkooda inay saaran yihiin waa inay marka taxadarkooda uu noqdo mid labalaab ah shay kasta oo ubadkooda hortooda ay ku sameynayaan waa inay ka fiirsadaan waa in maxaa la yiraahdaa iyaga is hagaajiyaan qofka hadduu isaga uusan hagaagsanayn ubadkiisa ma hagaagayo haddii adiga aad qaloocan tahay ubadkaadana wuu qaloocanaya ninkii shaciirka ahaa wuxuu yiraahday ayaa ayuha rajul muallimu ghayrahu halla li nafsika kana at-ta'limi تصف الدواء للسقام وضدنا كيما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإن فعلت فأنت حكيم فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم قبل وحوت المامية قفك كلا وحبريو adiga marka ugu horeysa bal horta wax isbar naftaada ka bilaaw ee ka reeb xumaanta haddii aad ka reebto waxaad tahay qof xikmad leh oo dadka kalena way ka reebmayaan ha ka reebin dadka dhaqan adigana aad la imaanayso ceeb ayay kugu tahay sidaasi oo kale haddii dhaqankii adiga aad la imaanayso aad rabto dadkii aad wax u sheegaysayna inaad ooga digto waxaa la yiraahdaa ubadku waxaad aragtaan inta badan haddii uu arko hooyadiis oo tukanayso ama aabihiis oo tukanayo wuxuu isku dayayaa inuu dhaadhaajiyo siday u farfoorsanayaan inuu sameeyo siday u istaagayaan inuu sameeyo waxaad aragtaan ubadka haddii maxaa la yiraahdaa uu daawado musalsal ama film haddii uu daawado waxaad arkaysaa isagoo dhaadhaajinayo wixii uu filimkaasi iyo musalsalkaasi ka soo arkay isagoo ku celcelinayo maskaxdiisa marka waa weel maran
waxay u baahan tahay marka wax lagu shubo. waalidkaasi ayuuna ka shidaal qaadanaya, wuxuu ku shubo ayuu ku shubmaya. haddii uu ku shubo akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan iyo wado wanaagsan uu baro, iyagana ay ka muuqato suluugaasi dhaqankaasi wanaagsan, ubadkaasina way hagaagsanaanayaan oo way toosayaan. Daawuus taabiciga weynaa ayaa maalin wuxuu u socday si xaraga kibir ay ku jirto, markaasa ubadkiisii dhadhajiyeen sidoo u soconayo kale u socdeen. markaasa wuxuu ku yiraahday calaama takhtaaluun, war maxaad u xaraga kibireynaysaan, maxaad sidan ugu soconaysaan? markaasa waxay yiraahdeen adigaan ku aragnay aabow, adigoo sameynaya ayaan ku aragnay, bada'ta bihi wa nahnu muqalliduh, adigaa noo bilaabay annagana kugu dayanayna. fakhaalif sayraka almi'wajja wa'dil fa inna in adilta mu'addiluh, waxay dhaheen socodkaada qallaacan khilaaf oo toosi, haddii aad toosiso annagana waan toosinayna. ama tadri abana kullu far'in yujari bil khuta man adabu, abo miyaadan ogeyn farac kasto ubad kasto intii adbisay ayuu ku daba dayanaya, tilaabtii qaadaan ayuu ka daba qaadaya. wuxuu yiraahday wayansha'u nashi'ul fityani minna ala ma awadahu abuh, midka inaga naga mid ah ee soo barbaaraya waxay ku soo barbaarayaan waxa ay maxaa la yiraahdaa aabayaashiis ooga caado dhigeen, waalidiintiisa waxay ku barbaariyeen ayuu ku barbaaraya. nabigana sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuu ishaaray oo wuxuu yiraahday mawluud kasta oo dhalanayo waxa uu ku dhashaa fitra wanaagsan, saafinimo ayuu ku dhashaa. aabihiis ayaa marka ama aabihiis iyo hooyadiis ayaa maxaa la yiraahdaa waxay ka dhigayaan kristaan, ama waxay ka dhigayaan maxaa la yiraahdaa yahuud, ama waxay ka dhigayaan dabcaabud, ama waxay ku hanuuninayaan wadada wanaagsan oo xaq ah ayuu ku hanuuninayaan. haddii marka adiga hadhoodii ubadkaada aad jidkii qaldan u horseedo, hadhoodii markaasi ubadkaada aad eedayso oo iga halaabeen aad dhahdo, kaama halaabin ee adiga ayaa maxaa la yiraahdaa sabab u noqday. adduunkana ma jirto wax sabab la'aan dhacaya oo imaanayo. waxyaalaha loo baahan yahay in la ilaaliyo waxaa ka mid ah aljiddiyatu fil mawaaciid, ballamaha in laga dhabeeyo. ballantii ubadkaada aad ka qaado inaad kaga dhabeeyso, in ubadkaada aadan ku ciyaarin, ballan xumo aadan barin. aabba nacnacan ku keenaya ama shukulaataa ku keenaya, ama maalin hebel waxaan ku wadayaa casho ayaan maqaayad hebel ka soo cunaynaaya dhahday, kadibna waad u gambisay. hadhood ubadkii marka wuxuu baranayaa in ballantu ay wax weyn ahayn, in beentuna ay caadi tahay sababtoo adiga u gambiyay. hadhood wuxuu sameynaya isagana wuu gambinayaa, khiyaano ayuu baranaya iyo gambis. lidaalika waxaa loo baahan yahay in ballantii aad ubadkaada ka qaaday inaad si sax uga soo baxdo. haddii ay kugu cuslaato in ubadkaada aad u cudur daarato, wiilkayga waan rabay in ballantaada aan kuu sameeyo, laakiin waxa ay qabsatay dhibkaas iyo dhibkaas iyo dhibkaas, inaad iska qanciso. qof weyn oo kale inaad oola dhaqanto, laakiin ma aha inaad tiraahdo ma fahmayo, ma garanayo, maxaa la yiraahdaa ma dareemayo, kadibna aad iska fududaysato, kadibna uu dhaqankaasi barto, dhaqan xumana ay uga imaato. horeyna waan usoo sheegnay ubadka dareenkiisa iyo caqligiisa aad ayuu u sareeyaa, maskaxdiisuna wax ma ilowda markaas oo kale. wax allaalo wixii lagu sameeyo marka uu yar yahay 3 sano 4 sano markii uu jiro iyo sida loola dhaqmo, maskaxdiisa way ku seef garaysan tahay, wuuna xusuusanaya. sababta maskaxdiisa sida aad u malaynayso ma ahan, way ka weyn tahay, wayna ka xoog badan tahay. waxyaalaha ugu muhiimsan ee loo baahan in la ilaaliyo waxaa ka mid ah in ay is-ixtiraamaan labada waalid, inuu ka dhex arko labadiisa waalid is-ixtiraam. hooyadu ay tiraahdo aabaha orod u tag, aabaha u soo adeeg, aabaha uu yiraahdo hooyada orod ka soo ducayso, orod hooyada u tag, hooyada sidan ayuu ku leedahay, hooyada way ku jeceshahay. in aabaha markii uu maqan yahay hooyada ay oga sheekayso aabaheed wuxuu ugu maqan yahay, iyo maxaa la yiraahdaa inuu risqigii noogu maqan yahay, inuu anaga noo soo shaqaynayo, in maxaa la yiraahdaa mas'uuliyadeena anaga u hay inay oga sheekayso. laakiin haddii uu arko aabihii hooyadii isdagaalayo oo iskhilaafayo, muran uu ka dhexdhexeeyo, dariska ay ku soo baxayaan, ubadkiina uu meeshaani maxaa la yiraahdaa ku oynayo, uu meeshaani ku ilxun yahay, aabihiisi hooyadiisna isdagaalayaan, marmar qaar ay dhacdo hooyadii markii maxaa la yiraahdaa aabihii ay murmaan inay ubadkii ku carooto oo ay madaxa ka garaacdo, xanaaqii aabaha uu geystay in ubadkeed ay kula dul dhacdo. ubadkaasi marka waxay ku jiraan shucuur aad fool xun, waxay ku jiraan xaalad nafsi ah oo fool xun, waxay maxaa la yiraahdaa ku barbaarayaan barbaaritaan aan qurxoonayn oo dhibaato ah. waxaa loo baahan yahay labada waalid way iskhilaafi karaan, waa bini aadan. haddii khilaaf uu yimaanayo in ay samaystaan qolka fadhiga
qolka fadhiga inay tagaan ay ku soo doodaan ay ku soo murmaan ay isku soo fogaareeyaan meeshaasi markii uu khilaafkooda maxaa la yiraahdaa iyo doodooda meeshaas ay ku soo dhameystaan ilmahooda waji qurux badan ay wala iimaanayaan haday iskhilaafayaan micnaheeda sida ugu fudud waa inay ubadkooda ka ilaaliyaan waa inay ubadkooda ay tusaan inay midaysan yihiin waa inay tusaan maxaa la yiraahdaa ubadkooda inay isjecel yihiin si ubadkooda ugu barbaaro jacayl si ugu barbaaro ixtiraam si ugu barbaaro kalsooni iyo maxaa la yiraahdaa guri deganaasho uu ka muuqdo si ugu barbaaro sidoo kale waxa kamid ah waxyaalaha xun inuusan isticmaalin waalidka ilmaha hortiisa sigaar hadii uu cabo kala tusaale ahaan ama mukhadaraad uu cuno in ubadkiisa hortiisa uusan ku cunin haduusan iska dhaafi karin taqdiirka ugu yar ee ubadkiisa uu qadarinayo waa in ubadka hortiisa uusan ku cunin waa in ubadkiisa uusan sigaarka isoo gad uusan oranin hadii uu maxaa la yiraahdaa iska dhaafi karinbo waa in ubadkiisa ka ilaaliyo hadii aad cunayso meelo ka baxsan ubadkaada ku soo cun ubadkaada ha tusin sababtoo ah adigoo waalidkii oo cunaya haduu ku arko isagana marka dambe uu baraaweynaya kadibna wuxuu noqonayaa mid ka falaagoobay oo mukhadaraadka bartay wada xunna qaaday ayuu noqonayaa waxaan hadda ka hor gaari BL ah isla soo raacnay nin oday ah kadib waxaan ka sheekeysanay mukhadaraadka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay markaas wuxuu ugu yiraahday aniga waxaan isticmaal jiray mukhadaraadka muddo aad u fara badan laakiin wuxuu yiraahday waxaan sameyn jiray ubadkayga waan ka qalin jiray ilmahayga hortooda waligay kumaanan cunin mukhadaraad oo waan la dhuuman jiray kadib wuxuu yiraahday maalin ayaan fikiray waxaan israahday nin weyn waa tahay ka waran bal maanta hadii ubadkaada ay ku ogaadaan inaad maxaa la yiraahdaa isticmaalayso mukhadaraadkan hadii ay ku fahmaan soo kuma dayan karaan soo kaama daba sameyn karaan wuxuu yiraahday fikradda ayaa ugu weynaatay habeenka ayaan ka fikirayay waxaan go'aan ku gaaray in mar dambe aanan isticmaalin mukhadaraadkaas idin wuxuu yiraahday muddadaas ayaa ugu dambeysay waxaana iskaga dhaafay ubadkayga awgeed hadda wuxuu yiraahday ubadkayga way ixtiraamaan wanaag ayaan kula dhaqnaa lacagtii iga bixi jirtay mukhadaraadka oo jaadka aan ku cuni jiray oo faraha badneed oo ubadkayga aanan ku dayactiri jirin hadda waxay u soo laabatay ubadkayga waxbarashadooda iyo dhaqaaleyntooda ay u soo laabatay lidaalika waxa fiicnaan lahayd in ubadkaada daraadood aad iskaga dhaafto mukhadaraadka aad cunayso hadii ubadkaada daraadood aadan iskaga dhaafi karin oo aadan iskaga goyn karin adcaaful iimaan waxa ugu fudud in ubadkaada hortooda aadan ku cunin mukhadaraadka oo meel ka baxsan aad ku soo cunto si ubadkaada aysan saameyn xun ugu yeelanin saameynta ay ku leedahay marka labada waalid oo wanaagsan saameynta ay ku leedahay ubadka waxay ku leedahay saameyn aad u weyn labadoodana way isaameynayaan ubadka hadii ay wanaagsanaadaan saameyn wanaagsan ay waalidiintooda ku yeelanayaan waadna garanaysaan ubadka hadii uu wanaagsanaado ubad saalixiin u noqdo maalinta qiyaamo waalidka uu ku farxaya waxa loo surayaa waalidka taaj oo maxaa la yiraahdaa qurux badan oo diamond ah ayaa loo surayaa ubadkiisii wanaagsanaa ee quraanka ilaahay qaybay ee jidka wanaagsan ku toosnaa daraadood waxa laga yaabaa in ubadkiisa awgiis in maxaa la yiraahdaa uu acmaal fara badan uusan shaqaysan lahayn uu ku helo oo nabiga uu tilmaamay qofka markii uu dhinto amalkiisa uu baaba'aya ilaa marka laga reebo 4 waxa kamid ahaa walad saalix ah oo soo duceeyo maalinta qiyaamada markuu yimaado wuxuu arkayaa jibaal xasanaad ah oo weyn markaas wuxuu leeyahay yaa rabbi aniga waxaan ima shaqaysan xagee iga yimaadeen waxa la leeyahay waa ubadkaadii oo dunida markii aad ka soo tagtay ku soo ducayn jiray ducada ayaad ku gaartay sidoo kale waalidka wanaagsan ubadkan wuxuu ku yeelanayaa saameyn wanaagsan maalinta qiyaamada markii la gaaro waa lagu kulminayaa jannada والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم كوي محال هذا إيمان كلي ماذا أبدكودا أي كراعين وحن هلشينينا ما ننت قيامه أبدكودا والجنة أي لسكو كل منها